أزاني أنا متجر هذا بيتم أو حدود أو ملكشتك أو سومالية كتيران إن شاء الله أمكن دعاء قرب يدورون كينيا وأنت ذكر مستمينا لكن تذكر كباها أزاني أخواني لكم أنا كأزاني كتير محمد هذا لو عوجناه دور شخص صوت كينيا سنة أنا دبان أنا هذا غيرنا انتهى قلنا انتهى دلتا وجدتها مش لوجا مش الأوتومات هذا ده الأزاني مؤمن ماي وقلت لي ليس أوتومات كرسي وين أضمته دولة الدموع أنا نساكين وين ما يكلوا وين وحكي يرمو ودنتي dadkaana gobolkaana diintaana aan muhiim ka dhigno marka anaga maanta waxaan u imaanay dadka baarlamaanka aadina aan u imaanay inaan laba shay isha mid anaga hadaan gobol iyo dawladda amada raamada xubinaha waan gaartaan mid labaad waxaan u imaanay aniga madaxweyne Sofia inaan iyo tusno Soomaalida kale waa dikayna waan dikayna isku dagmaanahay isku waxaanahay reer walaakina beeftiina dibkiina ana kala unaya فخير الذين جايلي وبالله التوفيق السلام عليكم. الرحمن الرحيم وحان اشتاقي إن أمها الغليو الليوانات الصفيو ووزير حقين كآدم بره كبابدي يتاكوليتي يقليتي ay noo soo jeediyeen iyo aqoonta ayagu ay u leeyihiin iyo heerka ay soo mareen iyo khibradda dawladoodu ay leedahay inay noo soo gudbiyaan marka waxaa waaye waqti fara badan halkaa kuma ruminayo waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalihii jira dacwaddu uma rabno barnaamijka lagu soo rameeyaan jecelahay labadaa qodob laakiin dadka ay ku dhinaayeen waa in ay soo gudbiyaan wey waa mida waxaa la i weydiiyey garsoorka goboladan muxuu ahaaye xalinta khilaafaadka iyo ansixitaanka dad baa waxay i weydiiyeen annaga ree hebela kuma jirno annaga ree hebela kuma jirno ninka meesha fadhiya ee garsoorka ku qoran iyo ninka aan ku qornayn waa isku mid haa macnaheedu السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وحان شلي يدهراد يكهليني ما أنتنا عيب كمية تذكي مرتدى ونوي مادين يكهلين horeyna aan u fasiray maamulka dowlad goboleedka ama maamul dowladeed guud ahaan waa saddex qayb waaya marka waa saddex qaybood oo awood siman qayb horena uga hadalay waxaa waaye waa xeeldejin waa baarlamaanka qaybna waxaa waaye waa fulin waa madaxweyne iyo dawladda iyo dadka markaas loo xisaaro in barnaamijka markaa dawladdu ay degsato baarlamaanku isku raaco inay fuliyaan qaybta saddexaad waa garsoorka macnihiisa waxaa waaye maanta waxaan maraynaa gabadha safiyo si fiican bay uga hadashay haddii annaga aan garsoor fiican yeelano oo cadaalad ku salaysan waxaa dhici karto in dhibaatooyinka Soomaalidu ilaa ay haddeertaan ay ku jirtay in si fiican looga baxo marka waxaan soo jeedinaa markaas halkaan laba qodob waxaan jeclahay inaan ka hadlo sida programka loogu qornay waxaan ku noqonaa awood qaybsi qodobka labaadna wuxuu noqonayaa annaga sharciyan waxaa noo qoran oo jaartarkeena ku jira oo ah qaybta garsoorka
marka waxaan ku hormaraa qaybta awood qaybsiga waxaana rajaynayaa inay la fogaanin qaybta awood qaybsiga marka aan hadlayna annaga qaabkii oo dadku ay go-aanka ku gaadheen in ay wax ku qaybsadaan waxaa waaye kow in dadka deegaanka degani kulli ay maamulka ka muuqdaan marka sidee uga muuqanayaan ciddii wax ka weyda baarlamaanka waa in ay guurtida wax ka hesho dadka aan ka hadlayno waa dadkii la qoray waya aan isla ogeyn haddaad isku raacdaan dad kale inay jiraan oo cusubna ayaguna waxay kamid noqonayaan maaragtay liiska ay kamid noqonayaan haddii labadaa uu iska waayo qofkana in uu dowladda wax ka helo marka taas waa midda kale waxaa waaye soomaali markasta qabiil lagama waayo saddexdan awoodooda hadda annaga aan ka hadalay waxaa la rabaa in aanay isku reer ka muuqan macnaha waxaa waaye ani hadda magac reer iyo waxbaa laygu sheegaa qof magacaan wadaagno waxaa waaye position weyn oo madaxweyne ku-xigeen oo maaragtay ra-iisul baarlamaan iyo gudoomiye guurti ma dooran karo waxaa waaye qabaa'ilka kale oo waaweyn oo deegaanka degan waa in ay baawarkaas muuqda oo afarta ah ama shan bay noqon karaan kolley soomaalida uma haysta garsoorku inuu macno leeyahay xayle kulligood baa cadaalad darro ku dhisan muurta laakiin garsoorku asagaa tiir ayaa wuxuuna ka xoog badan yahay wax uuna raalli ka ahayn madaxweynena ma gudbin karo baarlamaanna ma gudbin karo laakiin soomaalidu waxay u haysataa keliya dowlad meel wax laga dhaco muurta sharci iyo nidaam la ilaaliyo iyo waxaa shaqadanada maaha marka dhinacaas ani waxaan rabay hoosta inaan ka xariiqo marka waxaa weeyaan sidii aan hore u sheegnay heshiiskeenna annaga aan heshiinay waxaa waaye dadku deegaanka degan oo la aqoonsan yahay deegaankaas inay degan yihiin waa inay maamulka meel ka soo galaan ma aha meel walba inay ka soo galaan laakiin meel inay ka soo galaan waan isku raacnay waxaa la rabaa in la dabaqo oo lagu xurmeeyo baarlamaan ciddi weyday waa inay hesho guurti ciddi guurti weydana waa inay baarlamaan hesho ciddii labadooda weydana waa inay dowladda meel ka hesho taa halkaasa looga baxaa qaybta labaadna waxaa waaye qaybaha muuqdo oo garsoorka iyo xeerdejinta iyo fulinta waa in dad kala kaan ah oo abtirada aad samaysateen oo kala duwan ka kala imaanayo waa inay dadkaasi noqdaan marka intaa waxaan uga baxayaa fasiraadaas ku saabsan awood qaybsiga qodobka labaad waxaa waaye garsoorkii maxaa annaga noo qoran garsoorkeena soo shaqeynaya muxuu ka kooban yahay waxaa waaye hadda waxaad la soconaysaa cabdicasiis asagaa soo bandhigaa waa mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu gudagelaynaa qayb ka mid a axdiga waa qaybta sideedaad waaxda garsoorka waxay ka bilaabmaysaa qodobka 82 ilaa qodobka 89 ciddii axdiga haysato way la socon kartaa ciddii aan hadda gacanta ku haynayna waxay kala socon kartaa screenka qodobka 82 madax bannaanida iyo dhismaha garsoorka madax bannaanida iyo dhismaha garsoorka awoodda saddexaad ee dowladda Tanzania waa garsoorka waxaa ka horreeyay laba awoodood oo ahaa xeerdejinta iyo fulinta awoodda saddexaad waa awoodda garsoorka waxay yeelanaysaa dowladda Tanzania waax garsoor oo mas'uuliyadeedu tahay in ay u garnaqdo
dowladda iyo dadweynaha dhexdiisa dowladda iyo dadweynaha dhexdiisa. garsoorku waa ka madax bannaan yahay golayaasha xeerdejinta iyo fulinta. garsoorku wuxuu u madax bannaan yahay howshiisa garsoor iyo maamulba sharciga oo keliya garsoorku wuxuu u madax bannaan yahay howshiisa garsoor iyo maamulba sharciga oo keliya ayuuna u hoggaansamayaa. garsoorku waxa uu ka kooban yahay